barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay afgembigii fashilmay ee magaciisu ahaa Cirro iyo saraakiishii loo toogtay iyo baxsashadii Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo aan xogo dhowr ah ka soo qaadan doono buuggiisa halgan iyo hagardaamo ayaa qoraalkiisa waxa uu ku bilaabayaa sidaan sida caadiga ah dalalka Afrika awoodda oo dhan waxay ku urursan tahay caasimadda wax kastana halkaas baa laga maamulaa sidaas awgeed isku day kasta oo xukuumadda lagu afgambiyay waxaa qasab ah in caasimadda laga bilaabo haddii isku dayga afgambiga laga soo bilaabo meel ka baxsan caasimadda waxaa halis loo yahay inay arrinta u dilaacdo dagaal sokeeye ama dalku uu kala go'go'o inta ay ciidamadu jidka ku soo jiraan ayay xukuumaddu helaysaa fursad iyo waqti ay heegan ku geliso ciidamada caasimadda ku sugan isla markaasna ay ku dhaqaaqdo talo iyo howlgallo ay ku kala furfurto ciidamada afgambiga wado annaga oo arrintaas ka duulayno ayaan markii aan isku dubaridnay qorshihii afgambiga go'aan ku gaarnay in uu afgambigu ka bilowdo caasimadda fulinta xilalkaasna waxaan u xil saarnay gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cismaan Cirro arrintaas ayaana keentay in afgambiga lagu magacaabo Cirro inkastoo afgambigu dhacay 1987kii abaabulkiisu waxa uu bilowday dhamaadkii 1975kii bil kadib markii aan xabsiga ka soo baxay durbaba markii aan soo dhameystay xabsigii dheeraa waxaan la kulmay Maxamed Siyaad Barre waxaana u sheegay in uusan caafimaadkaygu wanaagsanayn oo aan doonayo in aan dalka dibadiisa isku soo daaweeyo taasoo uu ii diiday run ahaantii ma jirin wax jirro ah oo aan qabay waxaan se doonayay marmarsiyo aan dalka uga baxo isaga oo iska dhigaya nin ka welwelaya arrimaha dalka ayuu Maxamed Siyaad Barre ugu yiri soo dhawow waxaa loo baahan yahay in dalka loo shaqeeyo sidaas awgeed waxaan gartay in aan ka dhigo maareeyaha guud ee shirkadda wagad waxaa lahaa dawladda waxaana loo dhisay in ay la wareegto dhammaan howlihii ay qaban jireen shirkadihii gaarka loo lahaa oo keeni jiray iibini jirayna nooc kasta oo gaadiid ah iyo dhammaan qalabka dayactirka baabuurta waxay ahayd shirkad shaqo badan oo dakhli aad u badan dawladda ka soo gali jiray shirkadaas aniga la iguma dhiibin aqoon iyo xirfad aan u leeyahay maamulka iyo maareynta dhaqaalaha oo waxba kama aanan aqoonin waxaase la iigu dhiibay in la hawageliyo oo la iga hor istaago inaan helo waqti firaaqa ah oo aan soo ceshado xiriirkaygii caadiga ahaa oo aan horay xigto iyo saaxiibo ula lahaa inaan jagadaas cagajiid ku yeelo qasab bay ugu noqotay sidaas oo kale waxaan ku tashaday inaan dhaqdhaqaaqayga yareeyo anigoo ogsoonaa inay ciidamada nabad sugidda ilaalo xoog leh igu haayeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa Cirro waxa uu ila soo yeeshay xiriir aan toos ahayn waxa uu ii soo diray saraakiil dhalinyaro ah kuwaasoo i soo gaarsiiyey fariintiisii nuxurka fariintaas waxay ahayd inay ka go'need ama ka go'an tahay inay afgambi sameeyaan oo ay Siyaad Barre xukunka ka tuuraan waxay ii sheegeen in ay doonayaan in aan la raadiyo dhaqaale ay afgambiga ku abaabulaan iyo in aan meesha u fadhiyo talana aan ka siiyo hadba meesha ay howli marayso duluucda hadalkooda waxa uu ahaa inaan hogaamiye dhaqaale u helo qorshihii afgambigana aan u diyaariyo kana ilaaliyo inay qaadaan talaabooyin qaldan waxaan ku yiri waxaad la xiriirtaan Abshir Muuse oo maareeye ka ahaa wakaaladda xoogga korontada iyo Xirsi Bulxan oo asna maareeye guud ka ahaa wakaaladda muuska waxaadna u sheegtaan inaan anigu idin soo diray inkastoo xukuumadda Siyaad Barre ay ku eedeyn jirtay musuqmaasuq xukuumadihii ka horreeyay waxaan muddo gaaban ku gartay inaysan arrintaasi waxba ka jirin oo xukuumadda Maxamed Siyaad Barre ay tahay musuqmaasuqaba hooyadiis waxaan muddo gaaban ku ururiyay lacag gaarayso ilaa $300,000 Abshir Muuse iyo Xirsi Bulxanna iyaguna waxay aruuriyeen lacag aanan hadda xasuusan tirada ay ahayd run ahaantii lacagta aan ururinay way ka yareed baahida abaabulka xogaagii yareed ee aan aruurnay ayaa si fiican howlihii afgambiga loogu maamulay natiijada ka soo baxday howlaha abaabulka ee ay ku guda jiraan ayaa Cirro hadba warqad iigu soo qori jiray dhamaadkii 1976kii ayaa warbixin la iigu keenay in uu Cirro doonayo inuu ku dhaqaaqo fulinta afgambiga arrintaasi waan ka naxay oo welwel ayay igelisay waxaan u yeeray Yaasiin Hurfe oo ahaa sargaal leh tababar sare Siyaad Barre ayaa ciidan ka saaray oo wakaaladda cagaf-cagafyada u bedelay waxaan ku dhahay orod degdeg Cirro ugu tag oo inta uusan tilaabo qaadin aniga hay isoo sheego awoodda ciidan ee uu ka howlgalayo fariintii waa loo geeyay Yaasiin markii uu igu soo noqday wuxuu ii sheegay in uu Cirro hayo 60 nin welina uusan la xiriirin ciidamada kale ee caasimadda jooga oo ay ka mid yihiin kuwa taangiyada iyo madaafiicda mar labaad ayaan Yaasiin u diray Cirro una faray in ay tilaabadaasi tahay qariska tuur isla markaasna sababayso in dad badan uu ku dhinto markii aan isugu nimid halkii aan ku ballanay ayaan Cirro weydiiyey in ay sax tahay fariinta Yaasiin Hurfe iiga keenay haa ayuu iigu jawaabay waxaan markiiba gartay oo aan u sheegay in ay wixiisu ahaayeen laablakac ee uusan wax fikrad ah ka haysan waxa abaabul afgambi yahay wuxuu ugu yiri wargeedkan Siyaad Barre caga badan kuma taagna oo marka aan weerar isku qaadno ayaa inta aan isla lagdamayno guutooyin kale iga soo gaari doonaan kuwaas oo hadda ku kala sugan Luuq iyo Hargeysa inta aan cabaara aamusay oo fikiray ayaan Cirro ku dhahay
cirrow bal wax yar idhigayso waxna kaa qari maayo oo shaki ayaa iga galay caafimaadkaaga marka hore waxaad ii sheegtaa goorta ay ku soo gaarayaan ciidamada aad meelahaas fog ka sugaysaa aniga oo jawaabtii sii sugin ayaan si cara leh ugu dhahay war waxaad wadaa isbiimeen aadan meel ku gaarayn dowladna aadan wax ku yeeli karin ma waxa aad doonaysaa in aad kumanyaal qof naftooda ku hurtid talo aan bislayn taasoo haddii lagu dhaqaaqo la og yahay cawaaqib xumada ka dhalan doonta waxaan kula taliyey in uu degdeg u joojiyo dhaqdhaqaaqa uu hadda wado laguna tilaabsado qorshe maangal ah oo afgembina lagu samayn karo kaasoo la saadaali karo natiijadiisa ugu dambayntii waxaan ku dhahay haddii aadan ku shaqayn tallaabadaas waxaan kuu sheegayaa in wixii mas-uuliyad ah ee ka yimaada hubsiima la'aanta aad hadda wadaan in aanan anigu wax lug ah ku lahayn taasoo aan weliba sheegi doono marka anigu waxaan ku leeyahay inay noo wada wanaagsan tahay in aad dib u dhigto waxa aad hadda ku tala gashay nasiib wanaag taladii waa uu iga qaatay markaas kadib ayaan si wanaagsan ugu habeeyey cirro qorshe aan horay uga shaqeeyey waxaan ku yidhi qorshuhu waa in marka hore la qabto maxamed cali samatar oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka iyo cumar xaaji masalle oo ah madaxa taangiyada iyo siciid faarax gooje oo ah madaxa ururka horseed ee xamar jajab fadhiya siciid faarax gooje wuxuu markii hore xubin ka ahaa saraakiisha afgembiga wax ka abaabulaysay kadibse dib ayuu u gurtay oo baqdin ayaa gashay raggii shaqada la wadayna waxa uu ku yidhi waana la ogaaday ha la joojiyo hawsha cirro waxaan kula taliyey in lagu dadaalo sidii gacanta loogu hayn lahaa maxamed maxamuud guuleed oo madax ka ahaa ciidamada cirka lana dhiirigeliyo si uusan marna abaabulka uga bixin taasoo aan u arkaynay in ciidanka cirka uu muhiim u yahay afgembigayna annaga oo cabsi ka qabnay in markii la qabto ciidamada taangiyada iyo kuwa madaafiicda ay cirka ka garaacaan qorshuhu waxa uu ahaa marka laga soo jeesto qaybtaas hore ee hawagalka in toos weerar loogu qaado madaxtooyada halkaasoo ay difaac kaga jiraan 5 taangi aanse u babac dhigi karin taangiyada tirada badan oo horay gacanta loogu dhigay haddana loo adeegsanayo qaybta labaad ee howlgalka haddii uu qorshuhu sidaas u dhaco maxamed siyaad barre waa la qabanayaa ama waa uu fakanayaa mid kastoo ay naqatana afgembigu waa uu guulaysanayaa cirro waxa uu igu wargeliyey in siyaad barre uu ku guda jiro diyaarinta dagaal Itoobiya lagu qaadayo oo ciidamada aan ku tashanayno loo diraayo dagaalkaas sidaasna ee arrinta afgembiga meesha uga baxayso inkastoo uu waxa uu ii sheegay ay saameyn ku yeelan karaan qorshahayna haddana waxaan ku qanciyey in talada afgembiga aysan marnaba meesha ka baxaynin oo aan dib u soo noolayn doono mar allaale iyo markii ay noqotaba markii ay duruufuhu noo saamaxaan maalmo kadib sidii uu cirro ii sheegay ayay taladii maxamed siyaad barre ku dhammaatay oo waxaa la bilaabay dagaalkii Soomaali galbeed Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo qisadan inoo sii wada waxa uu leeyahay degdega dagaalka loo galay iyo degdega looga soo baxay halista dalka la geliyay iyo burburka la gaarsiiyey oo uu ka soo kaman la'yahay 30 sano kadib waxay ka markacayaan in go'aanka dagaalka lagu galay uu ahaa mid qaldan oo la qaatay waqti qaldan arrintaas waxay muujinaysaa in shacbiga Soomaaliyeed haddii laga reebo siyaad barre iyo kooxda uu ku shaqaysan jiray aysan wax tala ah ku lahayn taladaas lagu hoogay inkastoo idaacadaha laga sheegay in golaha dhexe ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed uu gaaray talada dagaalka lagu galay qof kasta oo sagaranaya habmaamulka siyaad barre waa uu garan karay in aan xisbiga hantiwadaagga wax go'aan ah uusan ka qaadan oo uusan wax awood ah dalka ku lahayn kaalintiisuna ku ekayd shaabad wax lagu rasmiyeysto sida la og yahay go'aanka ay Soomaaliya dagaalka ku gashay waxaa lagu qaatay xafiisyo ka fog dalka Soomaaliya waxaana ka dambeeyay dawlado shisheeye kuwaasoo ka faa'iideystay caadifada iyo jahliga shacbiga Soomaaliyeed iyo xukuumad danays ku jirtay oo aan dad iyo dal toona danka lahayn sidaas ay dawladaha shisheeye iyaga oo u maraya dawlado dabadhilif u ah ugu qonsadeen Soomaaliya siyaasad iyo istiraatiijiyad ku jihaysnaa sidii USSR looga saari lahaa mandaqada geeska Afrika kadibna badda cas iyo badda India dawladaha Soomaaliya ka taageerayay dagaalka ay Itoobiya kula jirtay waxa ugu firfircoonaa Masar iyo Sacuudiga labadaasi dawladood waxay ka midaysnaayeen oo kaliya sidii ay wadajir gobolka uga fulin lahaayeen siyaasadda Mareykanka balse waxay ku kala duwanaayeen ujeedada ay Soomaaliya ka lahaayeen halka Sacuudi Carabiya iyada oo eeganaysa danagaar u ah waxay Itoobiya kala midaysneed in aysan Soomaaliya mar dambe yeelan dawlad xoog leh oo saameyn ku yeelan karta geeska Afrika Masarse waxay markasta u taagneed in ay Soomaaliya noqoto dawlad xoog leh oo wakiil ay uga noqoto danaha ay ka leedahay geeska Afrika isaga oo danihiisa ka raacanayo ayuu qaatay tilaabo uusan inaba ku tixgelinayn jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee ku kala nool Soomaaliya iyo Soomaali galbeed aragtida maxamed siyaad barre waxay ahayd in uu ka faa'iido mooyee in uusan marna dagaal ku qasaarin wuxuu qabay in haddii uu dagaal ku guuleysto uu isu caleem saari doono halyeeyigii ummadda Soomaaliyeed sidaasoo kale ma jirin wax uu waayi lahaa haddii uu ku guuldareysto dagaalka isaga oo weliba ballanqaad ka haystay dalalka reer galbeedka in aysan marnaba Itoobiya Ruushka iyo xulufadiisa aysan ka soo gudbi doonin xuduudda Soomaaliya sidaas darteedna uu xukunkiisa haysan doono xitaa haddii dagaalka looga adkaado arrintaas waxa uu ku mutaystay xiriirka wanaagsan ee uu la yeeshay galbeedka
xiriirkaasi waxaa aabbo u ahaa diyaaraddii Lufthansa ee Jarmalka oo ay Falastiiniyiintii diyaaradda afduubtay ay ku soo dejiyeen magaalada Muqdisho kadibna uu Maxamed Siyaad Barre Jarmalka u fasaxay in ay diyaaradda ku furtaan gegada diyaaradaha ee Muqdisho. arrintaas waxay si aan la balay karin sare ugu qaaday sumcaddii Maxamed Siyaad Barre uu ku lahaa reer galbeedka oo dhan haba ugu horreeyaane Jarmalka iyo Maraykanka. waxaaba la dhihi karaa in guuldarro kasta oo dagaalka soo gaartay ay libin u tahay oo ciidamada uusan ku kalsoonayn ay ku tirtirmayaan dagaalkaas. dalalka carabta oo dhan waxay Soomaaliya garab ku siiyeen dagaalka ay Itoobiya kula jirtay. taageeradaas waxay ahayd mid siyaasadeed waxaana arrintaas tusaale u ah sida ay carabta oo dhan faraha ugala laabteen xaaladda Soomaaliya markii ay dowladdii burburtay. waxaa kale oo arrintaas tusaale u ah marka laga reebo Yemen iyo Syria sida ay burburka kadib uga dhaarteen in qof Soomaali ah uu dalalkooda cag soo dhigo halka dalal badan oo aan carab ahayn muslimna ahayn ay si bini'aadanimo leh u soo dhaweeyeen. sidaas oo kale waxaa kordhay tiradii ciidanka taas oo suurtagelisay in shaqo la'aanta dalka ka jirtay darteed dhalinyaro fara badan ay ciidanka qortaan. Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo qisadan inoo sii wada waxa uu leeyahay laga bilaabo 1976kii muuqaal ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu lahaa sawir ciidan oo aad u sareeya waxa uu salaluudayay hoggaan xumo maxaa yeelay saraakiisha sarsare ayaa waxay u badnaayeen kuwa siyaasad ahaan darajooyinka lagu siiyey. Maxamed Siyaad Barre waa uu ogaa in saraakiishii uu garbaha u suray darajooyin aysan karti iyo xirfad ku muteysan balse reer hebelnimo lagu siiyey aysan iyagu meel iska bixin karin ciidamadana aysan dagaal geli karin. kadib waxaa Siyaad Barre sanduuq ku noqotay in uu dib ugu yeero saraakiishii xirfadda lahaa ee uu tartiib ciidanka uga sifeeyey. anigu waxaan ka mid noqday boqolaalkii sargaal ee uu dib uga yeeray. amarkii Siyaad Barre waxaan qaatay aniga oo ka xun balse aan waxba sameey karin waxaana ogaa haddii aan diido in uusan markaan xabsi i geynin ee uuba toos ii dili lahaa. arrintu waxay noqotay laba daran mid dooro ama ha ku dilo ama dagaalkan aadan aaminsanayn ku dhimo. waxaan ogaa in saraakiisha badan ee dib loogu yeeray oo aan isku beesha ahayn loogu talagalay inay dagaalkaasi ku wada dhintaan intii sharaf darro laygu dili lahaa oo Soomaalidu dhihi lahaa waa khaa'in oo waxa uu diiday in Soomaali galbeed la xureeyo dadkuna uu iska rumaysan lahaa dacayadda Maxamed Siyaad Barre. waxaan doorbiday in aan dagaalka ku dhinto oo aan saaxiibaday dagaalka la qaybsado. maalmo kadib waxaan tegay qaybtii koonfureed ee taliyaha la iiga dhigay isla markiiba waxaan soo kormeeray fariisimada ciidamada. yaabkiis waxaan durbe indhaha ku dhuftay saraakiil fara badan oo aan horay u aqiinay iyo kuwa lixdamaadkii saraakiil aan dibadda ugu diray oo Siyaad Barre ciidamada ka saaray maantaas lagu khasbanaaday inay iyagu dagaalka hogaamiyaan. ciidamada aan meesha ugu tegay 90% iyaga ayaa madax ka ahaa ururada halkaas joogay. kaligay ayaa isweydiiyey aaway xaggay mareen wiilashii darajooyinka lagu raray. saraakiishii ayaan taliska ugu yeeray oo shir la qaatay kaas oo aan ku degsanay qorshihii aanu ku howlgeli lahayn. sida aan ogaanay dagaalka ay dowladdu ku dhawaaqday looma sameyn qorshihii dagaal ee ciidamadu ka howlgeli lahaayeen iyo tubta uu qorshahaasi goor walba ula saanqaadi kari lahaa hadda sida xaaladaha dagaalka isku beddelaan. sidaas oo kale ma jirin ku talagal saad iyo taakulayn joogto ah oo ciidamada looga haqabtiri lahaa baahidooda badan. ma jirin ku talagal ciidan kayd ah oo beddela dhaawaca iyo dhimashada imaan kartay. mana jirin kayd hubeed oo lagu beddelo kuwa dagaalka ku baaba'a ama hub soo kordhaya oo dagaalka lagu xoojiyo. intaasoo dhan waxay noqdeen kuwo laga sugayo dowladaha Siyaad Barre isbahaysiga la ahaa. howlahaas la gabay oo dhan waxay Siyaad Barre qasab kaga dhigeen inuu gacmaha u dhigto odayaashii qabaa'ilka Soomaaliyeed oo xukunkiisa uu mar hore karaamada uga qaaday si ay u buuxiyaan kaalintii ay dowladdiisu gabtay. waxa uu ka baryay inay ciidan iyo sahayba ku taageeraan. waxa uu baryada odayaasha ku barbar waday jajoobid uusan waxba ka dhowrsanayn oo gaarsiisay in uu xoog ku qafaalo dhalinyaradii magaalooyinka joogtay. Maxamed Siyaad Barre kama uusan fikirin cadaawadda ay qof ahaantiisa iyo xukuumaddiisaba u qabeen madax dhaqameedyada uu gogosha u dhigtay si uu taageero uga helo waana ilaaway sidii xumeed ee uu odayaasha ula dhaqmay. sidaas oo kale markii uu isku furayay arrimaha qabaa'ilka ma uusan garanayn in ay tilaabadaasi ku noqon doonto mushkilad ku baahda oo uusan lug kala bixi doonin. markii aan qiimeeyey xaaladahaasi oo dhan waxaan goostay in aan qaybtii koonfureed ee aan hogaaminayay ku dagaal gelino qorshe aan taliskeena ku degsanay. goor ay subax hore tahay ayaan weerar ku qaadnay dhammaan aagaggii ay ka fadhiyaan xuduudda ciidamadii naga soo horjeeday. inkastoo diyaaradaha cadowga ay hakinayeen xawliga uu weerarkeena ku socday waxaan haddana nasiib wanaag ku guulaysanay in aan muddo gaaban ku baabi'ino difaacii cadowga. tilaabadaas waxay noo suurtagelisay in aan dhowr maalin gudahood ku gaarno Nageyle oo xadka Soomaaliya u jirto 360 kiiloomitir. markii aan halkaas difaac ka galnay ayaan Muqdisho weydiisanay saad iyo taakulayn degdeg ah kuwaas oo aan baahi weyn u qabnay si aan horay ugu sii soconno. wax jawaab ahse nagulma soo celin. marba marka ka dambeeya ee dagaalku uu sii dheeraado waxay cadowga u ahayd guul maxaa yeelay waxaa si joogto ah u soo gaaraya hub saad iyo ciidamo u dagaalama kuwaas oo looga soo daadgureynayay midowga Sofiyeetiga, Kuuba, Yamanta Koonfureed, Jarmalka Bari iyo wixii la mid ah.
arrintaasina ma ahayn wax lala yaabo maadaama la ogaa in midowgii Soviet go'aan ku gaaray in aan waxba laga bedeli karin xaaladda jirta ciddii isku dayda in ay xoog wax uga bedeshana xuduudaha Itoobiya aan loo dul qaadan doonin degniintaasi Siyaad Barre waa ogaa waase iska indhatiray oo waxa uu ku riyoonayay in dawladihii dagaalka geliyay ama ku riixay ay ku taageerayaan qabsashada Soomaali galbeed markii ay muuqatay in weeraradii ka socday aagii gobolada waqooyi wax horumar ah laga gaari waayay isla markaas culays xoog laga soo saaray dhinaca Itoobiya buurihii Kaara marna la dhaafi waayay qasaarooyin badanna ay ciidamadeeni soo gaareen ayaan waxaan la xiriiray Maxamed Siyaad Barre waxaana u sheegay in aan haayo qorshe dhibaatooyinka kor ku xusan wax looga qaban karo Maxamed Siyaad Barre wuxuu ii soo diray diyaarad Muqdisho igeysa isla markii aan tagayba waa uu iqaabilay oo hawshii ayaan guda galnay waxaan halkaas ku soo bandhigay kaartadii iyo qoraalkii aan ku saleeyay qorshaha aan u soo jeediyay waxaan u sheegay in qorshahaasi uu hirgeli karo haddii ciidanka aan xukumo la siiyo saad iyo taakuleen degdeg ah lana xoojiyo waxaan ballan qaaday in haddii la isiiyo waxa aan u baahanahay in aan ciidanka degdeg u dhaqaajiyo oo Addis Ababa ka soo weerarayo koonfurta taas waxay ciidamada cadowga ee difaaca kaga jira Harar iyo Dirdhabe oo ciidankeenu mari waayeen khasab ay kaga dhigi doontaa in ay dib u soo noqdaan oo ay xooggooda saaraan difaaca caasimadda Addis Ababa markii ay taasi dhacdana waxaa soo dabageli doona ciidamadeeni oo dhabarjabin ku samayn doona ciidamadii u soo noqday difaaca Addis Ababa Maxamed Siyaad Barre si fiican ayuu ii dhageystay kaartadiina u darsay madaxana ka buuxsaday kadibna waxa uu igu yiri ka soco aniga markiiba waan iska gartay in uusan arrintan raali ka ahayn ka soco ujeedadeedu ma ahayn in uusan qorshaha ka helin balse waxaa dhib ku ahayd in uu aqbalo talo aan isaga ka soo unkamin oo haddii ay miro dhal noqoto uu qof kale magac ku yeesho kulankaasi waxaa nala fadhiyey ama nala joogay Jenaraal Maxamed Nuur Galaal haddii aan maanta dib u eego heerkii uu dagaalku taagnaa markii Maxamed Siyaad Barre socodsiin waayay qorshihii aan u soo jeediyey waxaan weli aaminsanahay haddii qorshahaas fursad la siin lahaa in aysan muddo gaaban ciidamadayna ku jabayn horaantii 1987 waxaa bilowday rogaal celintii iyo weeraradii ay xulafada Itoobiyaanka ku soo qaadeen ciidamada Soomaalida kuwaas oo hubka iyo saadka kalaba ay gabaabsi ku ahaayeen si geesinimo leh ayay u dagaalameen xoog ka weyn ayaa sahafiyay kadib markii isbedeshay awoodii miisaanka lahayd Soomaaliyana la cidleeyay oo ay weyday wax u soo gurmada ayaa dawladihii Maxamed Siyaad Barre xulafada la ahaa kula heshiiyeen isbahaysyadii Itoobiya in dagaalka la joojiyo oo aan xuduudda Soomaaliya laga soo gudbin aniga oo weli dalbanaya in saad iyo taakuleen la soo gaaro ayaa si aan filayn amar laygu soo siiyay in aan ka soo baxo gudaha Itoobiya oo aan dib ugu soo gurto xuduudda Soomaaliya amarkii ayaan qaatay oo si xirfad ku dheehan tahay ayaan muddo gaaban ciidankii ugu soo saaray gudaha Itoobiya isla markaasna aan soo geliyay xuduudda Doolow halkaas oo aan difaac adag ka galay iyada oo aysan qasaaro badan soo gaarin qalabkeeniina la soo wada baxnay waxaan maqli jiray ileengeel ninkii lahaa dhacayo lama dhicin karo waxaase taas ka daran sidii laga yeeli lahaa nin dalkiisii iyo dadkiisii ku danaysanaya si uu kursigiisa ugu badbaado markii ay dagaalka ku guuleysatay Itoobiya waxay qaaday tilaabooyin foolxun oo ay kaga argudanaysay Soomaalida waxay Soomaali galbeed ka soo saartay in ku dhow 2 milyan oo qof kuwaas oo qaxooti ahaan Soomaaliya loogu soo dhaweeyay waxay sun ku shubtay ceelashii iyo warihii ay dadka iyo xooluhu biyaha ka cabi jireen si ay intii qaxi weyday nolosha ugala dagaalanto waxay si aan kala sooc lahayn diyaarado ugu duqeysay dhammaan degmooyinkii dhulka Soomaaliyeed oo ay gumaysato adduunka arrintaasi indhaha ayuu ka qabsaday dhamaadkii 1976 qorshaha afgembigu waa uu dhamaystirnaa oo sida aan bogagga hor ku soo xusnay xilalka afgembiga lagu fulinayo waa ay noo kala qaybsanaayeen saraakiisha arrinta igula jirtayse waxay muujiyeen in uu dulqaadkii ka dhamaaday oo ay doonayeen in ay degdeg hawsha ugu dhaqaaqaan taladii cirro oo ahayd in uu 1976 afgembiga ku dhaqaaqay kasikow waxa isoo food saaray laba talo kale oo ka darantii cirro kuwaasoo isla saraakiishii afgembiga ila waday si bareer ah igu soo bandhigeen mid waxay ahayd in ciidamada aagaga kala duwan dagaal kaga jira oo badigood ay hoos yimaadaan saraakiisha afgembiga ila waday laga soo saaro dagaalka oo toos afgembiga loogu fuliyo markii aan taladaas maqlay waxay ugu noqotay filanwaa muddo dhowr daqiiqadood ah wax hadal ah waa iga soo bixi waaye markii aan xoogaa qaboobay ayaan aniga oo si degan ula hadlaaya waxaan ku yidhi saraakiishii waan garanayaa waxa idin eryaya oo waan u wada jeednaa in odorosta dagaalkaani wanaagsanayn kuna dambayn doono mustaqbal mugdi ah haddiise aan dagaalka ka baxno oo dhinaca afgembiga u jeesano soo Siyaad Barre noqon maayo geesi qaran inaguna noqon mayno rag dalkoodii khiyaamay oo baalmadow ka geli mayno taariikhda dalka soo niyad samida aan ku doonayno in aan dalka Siyaad Barre ka xurayno isu rogi mayso ama looma rogi doono in aanu nahay jawaasiis shisheeye u shaqaynaysay oo ciidankii dhabar jibisay si uu dalku cadowga ugu gacan galo muran badan kadib raggii waa ay wada garaysteen hadalladeedii wayna ku qanceen taladii aan u soo jeediyey ee ahayd in arrintaas la iska ilaawo talada kale waxaa la ii soo jeediyey muddo gaaban ka hor waqtigii aan afgembiga ku ballansanayn maalin maalmaha ka mid ah ayaa si lama filaan ah waxaa Doolow noogu yimid Maxamed Siyaad Barre oo wata 50 ilaalo ah
saraakiishii ila joogtay doolow afgembigana qayb ka ahaa ayaa badigood waxay ku taliyeen si afgembigan noogu sahlanaado aan meesha ku dilno maxamed siyaad barre iyo inta la socotaba. saraakiishaas waxay ku qanacsanaayeen in dilka maxamed siyaad barre uu ka dhignaan lahaa hawshii afgembiga oo qayb ka mid ah la qabtay. taladaasi iyadana waxay iila muuqatay mid haddii ay dhacdo uu cadowga ku farxi lahaa afgembigana ku fashilmi lahaa. anigu laba sababoodba arrintaasi waan uga soo horjeeday. tan hore waxaan qabay in haddii siyaad barre la dilo isla markiiba ragga xukuumaddiisa ka tirsan ay si fudud kursigiisa ugu fadhiisan lahaayeen, kadibna ay dalka oo dhan xukun degdeg ah ku soo rogi lahaayeen, ciidamadana gelin doonaan heeganka ugu sarreeya, sidaasna uu meesha uga bixi lahaa afgembigii aan muddaba ku howlanayn. sababta labaad ee aan taladaas uga soo horjeeday waxay ahayd in dilka siyaad barre horseed u noqon lahaa colaad qabiil oo aan weligeed la xakamayn kari doonin iyo taariikha inama ah oo kursi lagu doonayo. aragtida aan arrintaasi iska taagay waxaa gacan igu siiyey gaashaanla dhexe risaaq sheekh cismaan cali baadiye. raggii waxaan u soo jeediyey in arrinta si dhab ah looga doodo oo si xilkasnimo ku jirto loo qiimeeyo, lana isku miisaamo faa'iidada iyo khasaarada ka dhalan karto. nasiib wanaagse raggii dib ayuu u wada gurtay, kuwaas oo aan awl ku talagelin in dilka siyaad barre uusan waxba ka beddelayn xukuumadda oo muddo gaaban kursigiisii qof kale ku fadhiisan doono. nasiib wanaag waxaan ku guulaystay in maxamed siyaad barre iyo raggii la socday la badbaadiyo oo weliba aan iska diray iyaga oo nabad ah, ciidankuna ku soo dhoweeyey kuna sogogtiyey sharafta iyo xushmadda uu madaxweyne leeyahay. afgembigu waxa uu ahaa in uu dhaco 12 abriil oo ku aadaneed sanad guuradii 18aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed. maalintaasina waxaan u doornay in aan dhaqdhaqaaqayna la dareemin, sidaasna ay ciidamadeennu howlahooda ku fuliyaan. nasiib darase qaybtii muqdisho joogtay iyaga oo aan waxba nala socodsiin ayay xaalado aanan filayn oo soo food saaray awgood soo hormariyeen wakhtigii afgembiga lagu ballamay. sidaas darteedna waxay ku tashadeen in ay afgembigii ku dhaqaaqaan 9 abriil 1987, taasoo ah 3 maalmood ka hor maalintii lagu ballamay. dagaal saacado socday kadib ciidankii afgembiga waday waa laga itaal roonaaday. afgembigaas waxaa lagu qabtay 15 sarkaal oo ciidamada ka tirsanaa, 2 aqoon-yahan iyo saraakiil tiro badan oo laga soo kala qabtay qaybaha kala duwan ee ciidamada aanse wax lug ah ku lahayn afgembiga. sababta loo soo qabtay waxay ahayd howlgal guud oo ciidamada looga sifeynayay qabiil gaar ah majeerteen. taas waxaa kasii darnaa go'aanka maxamed siyaad barre ku gaaray in uu xabsiga u taxaabo siyaasiyiin iyo odayaal majeerteen ah oo ay ka mid ahaayeen xaaji muuse boqor oo dalka haybad iyo sharaf ku lahaa, taasoo ay dadka oo dhan u arkeen arrin aan la qaadan karin. si kastaba ha ahaatee arrintaas waxay muujisay in siyaad barre uu go'aansaday in uu si bareer ah u fuliyo colaadda uu majeerteenka u qabo. arrintaas waxay ku faaftay dalka oo dhan, miyi iyo magaalaba. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo qisadan inooga sheekeynayo waxa uu leeyahay, waxaa dhacday in dad badan oo majeerteen ah ay dalka ka qaxaan, sidaasna waxaa ku bilowday qaxii ugu horreeyey ee Soomaaliya ka dhaca. siyaad barre iyo majeerteen way kala go'een. habeenada ka mid ah ayuu maxamed siyaad barre baabuur qaatay oo toos u abbaaray gurigii allaha u naxariistee xaaji yuusuf cigaal. waxa uu gurigii yimid xaaji yuusuf cigaal oo markaas guriga derbigiisa fadhiya. maxamed siyaad barre salaan kadib waxa uu ku yidhi, xaajiyow iska warran. xaaji yuusuf waxa uu ku jawaabay, balaayada aad dhigtay maahee war kale ma jiro. maxamed siyaad barre waxa uu yidhi, ma waxaad ka hadlaysaa gacandiidkii dalka dumin lahaa oo la qabqabtay? xaaji yuusuf waxa uu ku jawaabay, maya ee waxaan ka hadlayaa saraakiishii aad tidhi afgembi bay sameeyeen oo aad markaas u rogtay qabiil afgembi sameeyey. xaajiga oo hadalkiisii sii wata ayaa siyaad barre ku yidhi, maxamedow idhegayso, annaga oo dawlad ah ayaad afgembi nagu samaysay, deero uma hardiyin. adiguna isku day afgembi oo ay saraakiishaadu ka dambeeyeen ayaad waxaad garatay in aad qabiil dhan u aanayso oo aad weliba af buuxa ku tiri waan tirtirayaa. waxaan ku leeyahay wallaahi maanta uu bilowday burburka dawladdaada oo aadan ka dambaynin majeerteenka aad leedahay waan tirtirayaa. maxamed siyaad barre markii uu cabbaar aamusnaa aadna u dhibsaday hadalkii xaaji yuusuf cigaal ayuu ku yidhi, xaaji maxaad ku talin lahayd? xaajigii wuxuu ugu jawaabay, anigu waxaan ku dhihi lahaa gaalkacyo tag oo odayaashii majeerteen la soo kulan, dhibka aad u geysatana ka soo raaligeli, una soo ballanqaad in aadan saraakiishaas ku fulinayn go'aanka maxkamadda ay gaartay, islamarkaasna u sheeg in aad magdhow ka siinaysid dhibkii aad gaarsiisay iyo in aad soo celinaysid ummaddii faraha badneed oo cid walba lahayd oo aad dalkooda ka qaxisay. maxamed siyaad iyo xaaji yuusuf waxay ahaayeen 2 oday oo weligood isyaqiinay. waxay u wada hadleen si caddaan ah oo aysan waxba isula harin. markaas kadib maxamed siyaad barre xaajigii ayuu macsalaameeyey oo iska tegey. kadib wuxuu u yeeray gaashaanla sare maxamed jibriil muuse oo ahaa ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda una dhashay beesha majeerteen. waxa uuna ku yidhi, gaalkacyo baad tegaysaa oo waxaad igaga soo ururinaysaa odayaasha majeerteen, halkaasna aniga ayaa kula kulmi doono. jibriil sidii ayuu yeelay. odayaashii ayuu deegaanadii qaar ugu tegey, qaarna foonayaasha kala hadlay, badigoodse waa ay diideen. sidaas awgeed intii uu heli karay ayuu gaalkacyo ku diyaariyey. kadibna maxamed siyaad barre ayuu halkaas ugu yeeray. shirkii dhex maray odayaashii majeerteen iyo maxamed siyaad barre wax natiijo ah lagama gaarin oo labada dhinacba waxay ka bixi waayeen is-eedayn.
ugu dambeyntii maxamed siyaad barre waxa uu odayaashii u ballan qaaday in uusan saraakiishii afgembiga lagu eedeeyey uusan ku fulin doonin go'aanka maxkamadda oo uu cafin doono maalmo kadib markii uu muqdisho ku soo noqday arrintii uu odayaasha ka ballan qaadayna laga war helay ayaa rag golihiisii gacaanka ku jiray suuqyada ku daadsheen waraaqo ay arrintaasi kaga soo horjeedeen oo ay ku qornaayeen erayo aflagaada ah iyo guubaabin siyaad barre lagu guubaabinayo in uu xukunka fuliyo waraaqaha ay suuqyada iyo magaalooyinka ku daadsheen waxaa caan ka noqotay tii ay ku qorneed walle majeerteen laga baq eedaysanihii ugu horreeyey ee afgembiga madaxda ka ahaa gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan cirro wuxuu maxkamadda horteeda ka qirtay in uu keligiis mas-uul ka ahaa afgembiga oo saraakiishan kale aysan wax lug ah ku lahayn waxa uuna codsaday in saraakiisha la eedaysan si degdeg ah loo sii daayo oraahdiisiise dhig jalaq looma siin dhammaantoodna dil baa lagu xukumay waxaana xukun dil ah lagu fuliyey 26 Oktoobar sanadkii 1987 saraakiishan la toogtay waxaa ka mid ahaa kuwaan hoos ku xusan 1 gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan cirro hogaamiyihii inqilaabka majeerteen cumar maxamuud 2 siciid maxamed jaamac majeerteen cismaan maxamuud 3 siciid jaamac nuur majeerteen ciise maxamuud 4 dhamme cabdisalaan cilmi warsama gaab majeerteen nuux jibraa'iil 5 dhamme ibraahim maxamuud xirsi isaaq habar yunis 6 dhamme cabdulaahi xasan nuur xawaadle 7 dhamme cabdulaahi xasan faarax hawiye duduble 8 dhamme maxamed axmed yuusuf caagane majeerteen cumar maxamuud 9 dhamme bashiir abshir ciise majeerteen cusmaan maxamuud 10 laba xidigle cabdulqaadir geelle cumar majeerteen cusmaan maxamuud 11 laba xidigle cabdiraxmaan macalin bashiir majeerteen wadalmuge 12 laba xidigle cabdi ugaas ismaan hawiye murusade 13 laba xidigle aadan warsama yare majeerteen cumar maxamuud 14 laba xidigle siciid cabdulla gorod habar gidir sacad 15 laba xidigle cabdiwahaab axmed xaashi majeerteen cumar maxamuud 16 saddex xarigle faarax xalwo majeerteen cumar maxamuud 17 cabdiqafaar warsamayare majeerteen cumar maxamuud cabdulaahi yuusuf axmed oo qisadan inoo sii wada waxa uu leeyahay taas waxay caddaynaysaa in siyaad barre si ku talagal ah uu beel gooniya ula dagaalamayay guddigii odayaasha beesha majeerteen ee maxamed siyaad barre uu gaalgacyo kula soo kulmay waxay kala ahaayeen 1 maxamuud gurey cilmi sarmaan 2 axmed geyre dalabey iyo 3 muuse meygaag odayaashaasi madaxweynaha waxay ula garameen si aad u adag wuxuuse u carab laalaadiyey in uu dilka wiilashaasi ka fiirsan doono nasiib darrase xukun dil ah ayuu ku fuliyey markii uu xamar ku soo laabtay kulankoodiina waxa uu noqday hal bacaad lagu lisay dhallinyaradaasi waxaa lagu fuliyey xukun dil ah iyaga oo aan weliba wax maxkamad sharciga aan la saarin inta mid walba garbaduub loo xiray ayaa go'yar oo cas indhaha lagaga xiray kadibna rasaas ooda looga qaaday fashilaadii afgembiga kadib gaashaanla dhexe cabdulaahi axmed oo isna lagu neenaaso cirro oo ahaa abaanduulaha qaybta 6aad ahaana kusimaha taliyaha qaybta gaashaanla sare cumar canjeex oo ahaa taliyaha qaybta 6aad markaasna xarunta ka maqnaa oo xagga muqdisho ayaa taar been ah looga soo diray oo lagu wargeliyey in uu xarunta dhexe ee xoogga dalka Soomaaliyeed soo galo taarkaasna waxaa ka dambeeyey raggii afgembiga waday cabdulaahi axmed cirro ayaa isla maalintaas markii ay ahayd saacadu 11 barqanimo ama 5 saac maalmeed ii soo diray taar uu ku leeyahay idhigayso 2 eray ayaan ku sheegayaa cabdulaahi yuusufow afadaadii way dhicistay mar aan qadaynaynay oo aan iska sheekaysanaynay ayaa waxaa soo galay raadiyihii oo siyaad bar ka hadlaayo kaas oo ka hadlaayo in xoogga dalka Soomaaliyeed fashiliyey isku day afgembi ee uu ka dambeeyey gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan cirro markaas ayaan fahmay wixii ku qornaa taarkii cirro ii soo diray isla duhurnimadii ayaa muqdisho taar la iiga keenay oo lagu amraaya in la soo qabqabto saraakiisha liiska ku qoran oo ka tirsaneed guutada ciidanka difaaca cirka ee afgembiga isku dayday oo aan qaarkood weli la qaban markii uu warkii noo sugnaaday ayaan fiidkii u soo baxay dhinaca doolow waxaan u wada yeeray saraakiishii guutooyinka haye ee afgembiga igula wada jiray kuwaasoo aan u sheegay sida ay wax u dhaceen iyo in hadda wixii ka dambeeya dagaalkiinu bareer noqday waxaan u soo jeediyey in aan hal guuto maahee ciidamada intooda kale aan u dhaqaajino xagga baydhabo si aan u qabsanno xarunta 6aad ee fadhigoodu yahay magaalada baydhabo sidaas oo kale aan u sheegno guutooyinka inaga tirsan oo waqooyi jooga in ay hargeysa qabtaan kadibna aan raadiyo hargeysa ka sheegno in aan dalkii qabsannay nasiib darrase saraakiishii ugu firfircoonad ee afgembiga wax ka waday waxaa ku dhacay niyad jab iyo is-eedayn taladii aan u soo jeediyeyna way diideen markaas ayaan waxaan u sheegay in muqdisho taar la iiga soo diray kaasoo laygu amraayo in aan muqdisho wadatashi u tago waxaan ku yidhi waan garanayaa waxa la iigu yeeray idinkuna waad garan kartaan sidaas awgeed anigu muqdisho tegi maayo waana fakanayaa waxaana u fakanayaa dhinaca Kenya xagga Itoobiya uma baxsan karin oo shalay ayaan dagaal kula jiray waxay iigu jawaabeen inaguna ka harimayno oo waan ku raacaynaa hortase waxaan burburinaynaa hubka culus oo dhan
waxaan ku yidhi taasi dhic mayso maxaa yeelay haddii uu cadowga ogaado in aan burburinay hubkii cuslaa toos bay ciidanka oo difaac la'aan ah weerar ugu soo qaadayaan waxaana u fududaanaysa in ay muddo gaaban cagta mariyaan 30,000 oo askari mas-uuliyadda ka dhalata xasuuq intaas la egna ma qaadi karno marka arrintaasi aan iska dayno cabbaar markii aan wada hadalnay waxaan u sheegay in aan galabta tegaayo sidaas awgeedna ay si degdeg ah u soo baxaan intii aniga i raaci lahayd isla galabtii ayaanu dhaqaaqnay waxaa i raacay gaashaanla dhexe maxamed abshir cali weyrax axmed maxamed ilgiir 3 xidigle cabdulaahi maxamed xasan iyo 2 xidigle jaamac dheere oo naga daba yimid cabbaar markii aan soconay ayaa waxaa nagula joojiyey tuulada malkiriye oo 10 kiiloomitir ka sukaysa buulaxaawo ma garan karo in ay tuhmeen iyo in ay xogteen heleen toona balse markii aan dhaafnay ayayna soo daba kaceen waxaan amar ku bixiyey in aan xabad lagu ridin haddii aysan iyagu nagu soo ridin nasiib wanaagsi markii ayna soo gaari waayeen ayay naga hareen wax shila ama dagaal ah halkaas kama dhicin waxaan sii hormarnay saldhigga buulaxaawo halkaas oo booliskii joogay salaan sharaf igu siiyey waxaan u qaatay in ay noo malaynayeen wafdi rasmi ah oo kormeer u socda 10 abriil 1978 waxaa isla waddadaasi nooga hor yimid saraakiil aan horay ugu diray in ay tirokoob ku soo sameeyaan ciidanka iyo hubkooda si aan u helno xog ogaalnimo aan ku tashan karno afgembiga ka hor meeshii ay nooga hor yimaadeen ayaan istaagnay baabuurkii ayaan ka soo degay waxaan warbixin buuxda ka siiyey meesha uu xaal maraayo iyo in afgembigii fashilmay oo aan hadda baxsad u nahay xaggaas iyo Kenya dalkaas oo aan magangelin siyaasadeed weydiisan doono saraakiishaasi waxaan kula taliyey in ayna soo raacaan nagana horeeyaan maxaa yeelay annagu hub baan wadanay waxayse ku adkaysteen in ayna soo dabageli doonaan kadibna waxaan u sheegay in aysan meel istaagin taladaasina way iga yeeleen oo waayahay ayay ugu dhexeen balse waxay istaageen buulaxaawo halkaasna way ku nasteen subaxnimadii ayaa meeshii loogu yimid oo la qabqabtay kadibna xabsi dheer ayaa lagu xukumay raggaasi waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee dhamme maxamuud cabdi samatar gaboobe oo seedigey ahaa iyo dhamma cali faarax filoose iyo sargaal kale oo habar jeclo ah oo aanan hadda magaciisa xusuusnayn maxamed siyaad barre markii uu ogaaday in aan baxsanay ayuu ciidankii amar ku siiyey inna la soo qabto balse taasi ma aysan dhicin ma garan karo in siyaad barre amarkii ka noqday ama ciidanku ay amarkiisii fulin waayeen waxaanu galnay mardheera kadibna waxaana la geeyey saldhigga magaalada halkaas oo wax nagala qoray 2 saac ee subaxnimo ayaa mandheero waxaa ku soo degtay diyaaraddii ayaa nagula qaaday oo waxaan kusii degnay wajeer kadibna waxaana la geeyey gaarisa halkaas oo si fiican naloogu qaabilay saldhigga booliska xiro uu leeyahay oo guryo filooyin ah oo la degi kara ay ku yaalliin ayaan 2 isbuuc joognay halkaasna waraysi ayaa nagula yeeshay meeshaas waxaan ku arkay gaashaanla dhexe maxamuud barrow oo markaas ahaa taliyaha ciidanka Kenya ee fadhiya Mooyaale wax hadal ahse halkaas naguma dhex marin subaxdii dambe ayaa diyaarad anaga iyo macala baabuurteena nagula qaaday waxaana nagala dejiyey gagada diyaaradaha ee ciidanka cirka ee Nairobi hotel ayaana la geeyey muddo bil ku dhowna nagula haayay waraysiyo hor leh bayna la yeesheen markii nagala dhamaystay waraysiyadii waxaana la siiyey magangelin siyaasadeed iyo sharciyo cadeynaya in aan dalka ku noolaan karno waxay sana dhaheen war saxaafadeed ayaa la qabanayaa ee ka hadla waxaan ka warranay wixii aan u nimid dalkan iyo inqilaabkii fashilmay kaasoo aan caddeeyey inqilaabkaasi fashilmay awgeys in la xirxiray saraakiil badan oo weliba la layn doono maadaama afgembigii ciidan fashilmayna halganka waan wadaynaa dagaalkase waxaan ka dhigaynaa dagaal dadweyne daawadayaal barnaamijkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay haddii aad ka heshay like saar sidoo kalena noo sheer garay